maantaan waxay dhahdeen cunuga meeshaas wuu degan yihiin meeshii ka qaad hayaan dhahay waan ka qaaday lacag ay ii sheegtay $5,000 waxay siisay $2 aan cunug ku qaado bis meeshaan aan ka baxay Dudum aan tagay Dudum markaa taan soo wacay waxaan dhahay cunugi waan wadaa intee geeya sanina ku imaan doon bulguud markaa geesis gooska nina ku imaanayo ninkaas diib sida ameesha tagay ay intaas oo qofan koon dhigi kari laakiin islaantan aan idhaahday lacagtan ku siini qaad cunugayga shalay 2 saac ayuu uga dhumay guriga taga inta ka dhaca nag si ilaa xalay 4 saac guriga dadeed ayaan baareeyay markay tahay 4 saac iyo bar ayaa wiil baadiyaha iyaan ka soo sheegay wiilashii soo daala ayaa hadana u naqan war wiilka halkaas baa la bartay iska xakameeyeen alxamdu shukr wiilkii jooga la yiraahdo maamo waa lagu keenaya adeerkay baa raacay wiilkii la keenay aragtida aan arkay raggi iyo wiilashii iyo cunugii ooyin ayaan ooyo farxad oo ooyin ay iga keento ma hadda alla u sugnaatay meel 5 kiiloomitir u jirta magaalada oo lagu magacaabo Duduma Guduud waxa lagu qabtay gabadhii iyo cunugii ay wadatay iyadoo u waday dhanka Buula Guduud gabadhaas sidaad ka arkayseen ama iyadoo ay ku warramayso iyadoo ay sheegtay waxay cunuga u qaaday inay si qaado dadna gacanta u geliso cunugaas oo barnaamijkiisu u ahaa ganacsi in cunuga laga ganacsado waxay sheegtay cunugaas in $5,000 la ku geeyo Buula Guduud dad kale ayaan ku sugayay oo rabtay inay ku wareejiso waxaan u sheegaynaa bulshada reer Kismaayo shabakadii inaan qabanay gacanta ku hayno waxay mudnaana sharci ka heli doonaan waxaan u sheegaynaa kuwa kale ku hawlan hawshaas inaynan u soconaynin waxa iyagu ganacsan yihiin